waa ku dhowahay Trap. Magacaygu waa Maxamed Mursal. Waxaan ahay asaa barnaamijka Musili Platform. Waxaan ahay tababaro nololeed. Waxaan caawiyaa dhalinyarada rabaa in noloshooda ay qurxiyaan oo sida ugu wanaagsan ay u noolaadaan anigoo u sameynayo ka caawinayo inay caadooyin fiican dhistaan, caadooyin xun iska jaraan, kala shaqeynayo in ahdaaftoda ay gaaraan anigoo u marayo balanska iyo maxaan ku dhahay coaching service oo barnaamijkayga uu bixiyo. ka Musili Platform ahaan waa badanahay dhowr barnaamij aan leenahay, laakiin marka loo fiiriyo dhanka maxaan ku dhahaa coachingka, qofka marka hore waxaa kala shaqeynaa wuxuu rabo forman ka buuxinaa, asagaa soo dalbanayo forman ka buuxinaa caadooyinka uu rabo inuu sameysto, caadooyinka rabo inuu iska jaro, wuxuu rabo inuu gaaro. Marka waxaan u diyaarin dhowr balans jiro, qorshayaal jiro oo u bandhigayno oo maxaan ku dhahaa package jiro. Qofku waxa u fiirinayna marka baahiyadiisa wuxuu raadinayo inuu sameysto. Tusaale ahaan qofka dooro inuu maaragtay joogteynta barto camal, waxaa jirto qorshayaal kala duwan jirto 60 maalin, 30 maalin, 90 maalin u badan. oo marka qofku wuxuu dooranaa midda asaga uu jecel yahay iyo waxa u fiirinaynaa maadaama aan dhanka caadooyinka ku fiican shakhsiyan, waxaan u fiirinayaa caadadiisa ilaa inta uu ku joogteyn karo ku filanta inuu noloshiisa si automatically ugu mid noqoto ama waqtiga si automatic noloshiisa ugu bixi karto data caado iska saaray camal. Marwalba waxay ku xiran tahay qofka baahiyadiisa iyo maxaan ku dhahaa inta caadada oo aragno inay anaga dhiirigeliyaan manihin, laakiin shaqadeena iyada dhiirigelin dhinac kale ka ahbo. Tusaalahan coaching waxaa qofka inaa u noqoto laba shay, inaa u noqoto qof motivation siiya oo dhiirigeliya asaga aaminsan, qof adiga ku aaminsan inaa waxa sameysan kartid. Yani waxaan ahaa qofkan 100% waa aaminsan waxa inuu sameysan karo. Marka dhiirigelinta anaga naga imaanaysa asaga ma siino marka koowaad. Tan labaad waxa una accountability badna qof kala xisaabtamaya shayga inuu sameeyo. Tusaale qofkan wuxuu rabo inuu sameysto caado akhris, wuxuu marwalba buug badan oo soo gaday, buugga ma bilaabo dhaxda ugu tagaa mise buugga markuu soo gaday uu iska ilaawo mise wuxuu sameynaa. Anaga waxa u diyaarinayna marka hore 10 siinaa consultation oo sameynayna oo fudud 2 habeen 3 habeen aan la shaqeynayno. Waxa u diyaarinaynaa qaab ma aragtay oo asaga kula shaqeyn karo. Tusaale ahaan qofkan intuu akhrin karo 10 maalin, qorshe u dejinayna 20 beri 30 beri. Marka waxa u nahay maalin kasta qofku waxa naga dhaxay xiriir toos ah, daily waa la wada sheekaysanaa, xiriir naga dhaxay isbuuc walba ama 10 beri kadib waxaan leenahay kulan toos ah lahaanayna ama Zoom ha noqoto online ha noqoto mise call ha noqoto ama haddii suurtagalta intaas u kulano. Waxay ku xirta marwalba qofka qorshaha uu isticmaalay ku xiran tahay. Anaga dhiirigelin manihin, laakiin waxaana coachingkana waxaa qofka inaan laba shay u noqono, asaga inaan dhiirigelin siino oo kala shaqeyno oo asaga naftiisa iyo mindsetkiisa iyo caadooyinkiisa inaan bedelno. Marka labaadna inaan kala xisaabtano guulihiisa oo maalin kasta naga dhaxay xiriir toos ah, xagee wax ku marayaan, maxaad qabatay, maanta ku ahayd ilaa shalay xagee joogtay, inaan tusno farqiga u dhaxay shalay oo noo imaaday iyo maanta ma aragtay. Aniga waxaan ahay barnaamijka waxaan leenahay coach kala duwan aan leenahay. Shakhsiyan waxaan life coach, dadka waxaan kala shaqeynaa ma aragtay noloshooda ahdaaftoda ay gaaraan. Asaas ahaan shirkadda Musili Platform horta waa passion, rabitaan waaye, yani rabitaan aan jeclahay waaye. Waxaan jeclahay inaan maalin kasta is hormariyo shakhsiyan. wax kaliya aaminsan qofkii inuu markuu guul gaaray ku xiranta waxa inuu maalin kasta iska shaqeeyo inaadan joogin meesha shalay aad joogtaan. Marka waxa igu dhiirigeliya waxa waaye aniga shakhsiyan ay noloshaas mara. Tusaale qof markaad kala shaqeynayo caadooyin kala shaqeynayo, aniga waa sameeyaa dadka hadda baraha bulshada kala socdo Facebook, Instagram-ka, xitaa WhatsApp way arkaa maalin kasta waxaan sameeyaa recovery-ga, waa sameeyaa maalin kasta caadooyin sameystaa. midna waa sameeyaa, midna waa iska jaraa nolosheeda. Marka nolosha ayada iska ahba horumarin joogta. marka qaacido waxaa jirta ku noolaa la yiraahdo tahsiin mustamir, constant improvement. marka waxa qof kasta inay anfaciso aan kala shaqeeyo aniga u maraay qaab asaga la falgeli karto. qof walba waxa akhriyo uu dareemaa ahmiyada akhrisku u leeyahay. waxa farqi oo waxa habeenii maalin way kala duwan tahay. yani maalin kasta wax cusub baranaa, afkaar cusub ugu dhalanaa. barnaamijkaygan wuxuu ku shaqeeyaa waxa akhriskaas waayba, yani in maalin kasta idea cusub helo, ideadaasi ka shaqeeyo, nafteeda ku dabaqo, marka nafteeda ku soo experience gareeyo kadib dadka la wadaago. marka akhrisku wuxuu yahay waa tooshka ku socda, yani baadka maraya. horta mashaakilka ugu badan waxa ka mid dhalinyarada haysto waxa waaye inay maartay waxa ay rabaan haddana aysan ogeyn camal oo maqan yahay, wacyi uu maqan yahay. marka koowaad wadada koowaad uu isticmaalo waxa ka mid ah inaan aniga noqdo qofka maaragtay oo يعني توش قفك ما عرفت وحن عدين تبحنا عمل وحان سمية سمينار فري سمية برهي بالشوك سوق بيها مقالات وعوجها لفائدين كإلى ذاي
tan kale waxaan isticmaalaa newsletter isticmaala oo qoraalla sama maqaala qora oo la wadaago intaas boqolaal qof la wadaaga jirto dadkan way arkaan waana la igu yaqaan shay inaan ka shaqeeyo okay taas waxaa horta wacyi guud dadka ku dhisaya waay dadka inay waxaan ay fahmaan wadooyinka u mara marka qofka markuu arko injaaska aan gaarayo waxyaabaha achievement-ga aniga aan sameeyay dhalinyarada aan coach gareeyo waxyaaba markuu arko qofka soo dalbanayo markuu soo dalbado waxaan ka qaadaa interview iyo form badan ka buuxiyo su'aalo badan hordhiga oo maarad qofka si aan u ogaado baahida dhabta uu raadinayo qofka muxuu raadinayaa yani qofka talamsi waxa ogaada baahida uu rabo ogaada qof waxa arka qof ii iimaanay wax gooni raadin laakiin ana wixii baa ahayn soo marka waxa raadiyaa qofka baahidiisa kadib waxa uu diyaar qorshooyin kala duwan qorshe waxa kamid ah in ma aragtay maalin kasta shay mucayan u diro uu sameeyo qofku wuxuu rabo ha ahaado caadiisa laakiin waxa uu diraa waqti mucayan ah goor mucayan goob mucayan oo ku sameeyna waxa uu sameeyna marka si waxaan isticmaalaa qaacidooyin uu leeyahay inta badan James Clear ninka qora atomic habits isticmaalaa in ma aragtay si 1% improvement qofka ku sameeyo in maalin kasta qofka noloshiisa horumariyo